nin muddo 10 sano ah qashin ururin jiray ayaa si lama filaan ah isku arkay isagoo ku hareeraysan gaadiid qaali ah. Markaas ayuu ogaaday in uu leeyahay 3 gabdhood oo aan caadi ahayn. Gabadha ugu weyn waxay noqotay qofka ugu taajirsan magaalada, hanti aad u badan ayay lahayd. Tan labaad waxay noqotay saynisyahan heer sare ah, halka tan ugu yarna ay noqotay generaal si weyn loo ixtiraamo. Ninka wuxuu ku noolaa tuulo ay wiilasha ka qiimo badnaayeen gabdhaha. 3 gabdhood oo isku xiga dhalashadoodu waxay ka dhigtay qof lagu jeesjeeso oo la takooro sanado badan. Si kastaba ha ahaatee, ninku mar walba wuxuu aaminsanaa in gabdhuhu aysan ka liidan wiilasha, isagoo qashin ururinaya ayuu ku koriyey carruurtiisa ilaa ay noqdeen dad aad u sarreeya. Xitaa markii ay guulo waaweyn gaareen, gabdhihiisu weli way la socon jireen aabahood iyagoo ka caawinaya shaqadiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, wicitaan telefoon ayaa ku qasbay ninka inuu ku laabto tuuladiisii. Odayga tuulada ayaa u sheegay in ay jirto munaasabad deeq bixin ah. Ninku wuxuu rabay inuu si hoose uga qayb galo, laakiin gabadhiisa weyn ayaa siisay warqad envelope, waxayna u diyaarisay gaadiid qaali ah oo qaada. Markii dadka tuulada arkeen isaga oo ka degaya gaari qaali ah, way yaabeen. Laakiin markii ay ogaadeen inuusan gaarigu isaga lahayn, si degdeg ah ayay u bilaabeen inay ku jeesjeesaan. Qaar waxay isweydiiyeen sababta qof qashin ururiya uu soo laabtay si uu isugu eebayo. Ninku wuxuu soo saaray warqadii si uu deeq u bixiyo, laakiin cidina ma rumaysanayn inay wax lacag ah ku jirto. Gudaha hoolka, nin tuulo ah ayaa si ula kac ah kursigiisa u tuuray, taasoo keentay inuu dhulka ku dhaco iyadoo dadka qoslayaan. Odaygii tuulada ayaa si kibir leh u sheegay in kaliya dadka leh wiilal ay mudan yihiin sharaf. Qof leh 3 gabdhoodna uusan xaq u lahayn inuu meesha joogo. Ninku isagoo xanaaqiisa qarinaya ayuu si adag u yiri gabdhihiisu 100 jeer ayay ka wanaagsan yihiin wiilashooda. Taasi waxay sii kicisay caro, waxayna dadka qaar isku dayeen inay ku gardaraan. Isla markaas telefoonkiisa ayaa soo dhacay. Gabadhiisa weyn ayaa dareentay in aabaheed dib ku jiro, waxayna isla markiiba wacday walaalaheed. Dhammaantoodna waxay u soo dhaqaaqeen tuulada. Ninku isagoo weli dulqaadanaya aflagaadada ayuu mar kale soo bandhigay warqadii, isagoo sheegay inay tahay lacagta ay gabdhihiisu u soo direen deeq ahaan. Dadkii tuulada way qosleen, waxayna ku sharadeen inaysan ka badnayn lacag yar. Waxay xitaa dhigeen sharad ah haddii lacagta ku jirta ay ka badan tahay tan ay bixiyaan, inay jilba joogsadaan oo ay kabihiisa leefaan. Ninku si degan ayuu ugu jawaabay in lacagtu aysan muhiim ahayn, balse niyad wanaaga uu yahay waxa ugu muhiimsan. Laakiin dadka tuulada ma joojin. 2 nin ayaa horay u soo baxay. Mid wuxuu bixiyey lacag aad u badan, kan kalena xitaa ka sii badan. Dadkii waxay bilaabeen kibir iyo qosol, iyagoo sugaya in ninku is eebayo, laakiin ninku wuxuu aaminsanaa in gabdhihiisu weligood aysan hoos u dhigi doonin. Markii uu furay warqadii, waxaa gudaha ku jiray kaar bangi. Dadkii oo dhan indhahooda waxay ku dhegeen marka tirada lacagtu sii kordhaysay. Ugu dambeyntii, hoolkii oo dhan wuu aamusay, qof walbana wuxuu galay yaab iyo amakaag.